wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo joogtaan halkani waa Bandhiga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si cad u bilaabay ololihiisa doorashada fariinta uu diray mucaaradka iyo la shirtagidda dib u dhiska ciidanka oo sanadkan u noqon doona dooqiisa koobaad ee murashaxnimadiisa Villa Soomaaliya waxaa ka soconaya madaxtooyada maanta xog ayaan idinkaga haynaa wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Roble oo looga adkaaday dagaalkii doorashada kadib markii Villa Soomaaliya ay taageero ka heshay beesha caalamka haddaba ma dhab in Roble uu cadaadis ba'an kala kulmay beesha caalamka wararkan kalena waxaa kamid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo wada hadallo la furaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xilli ay maanta gaareen magaalada Baydhabo iyo lafta gareen oo xajistay doodiisa shardi adagna ku xiray soo fasaxitaanka xildhibaanadiisa cabsi laga qabo inay biri baaqato munaasabadda dhaarinta xildhibaanada ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa iyo mucaaradka dalka oo digniin culus u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xilli ay tilmaameen in uu dayacay amnigiisa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan Bandhiga TV daawadayaal haddii aad inagu cusub tihiin ku soo biira shabakadan oo subscribe saarta channelka si aad u heshaan warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waana Arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 13 Abriil 2022 aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkan waxa uu ololihiisa doorashada si cad kaga dhiganaya dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorashada ee dalka xilli uu markaasi isagu maalmihii la soo dhaafay waday xuska iyo weynaynta dib u dhiska iyo waliba sidoo kale maalinta 12 Abriil madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa munaasabado laba ah ku kala qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mid waxa ay ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga taasi oo ay ka soo qayb galeen dad markaasi ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya walow aysan qayb ka ahayn garabka ra'iisul wasaare Roble maadaama dagaal siyaasadeed uu kala dhaxeeyo madaxweynuhu waxa uu halkaasi ka sheegay isla markaana qodbadii uu halkaasi ka jeediyay ahayd mid u badnayd in uu kaalin weyn ku leeyahay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana uu ku soo galay dalka markiisii hore in uu nidaam bedelo sidoo kalena uu doonayo in uu dadka baro wadaniyadda iyo in dalkooda ay jeclaadaan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi ka sheegay in qabyaaladu ay tahay wax aanan wanaagsanayn oo qurun ah sida uu hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo wadaniyadda iyo in dalka dib u dhiskiisa laga qayb qaato sidoo kale xalayto madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu munaasabad sidaasi la mid ah isla markaana lagu xusay 12 Abriil ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya munaasabadan oo la filayay inuu ka soo qayb galayo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaanan suurto galin waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ka baaqsaday waxa sidoo kale halkaasi madaxweynuhu mar kale kula kulmay saraakiisha ugu sareysa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo kamid ah xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir waxa uu mar kale halkaasi ka sheegay wanaaga ay dawladdiisu markaa u sameysay ciidamada iyo sidoo kale in laga shaqeyn doono sidii loo kordhin lahaa mushaaraadka ciidamada waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay saraakiil ciidan oo iyaguna ku bogaadiyay madaxweynaha sida uu markaasi ugu dhiiranaa in laga qayb qaato dib u dhiska ciidamada markaasi xoogga dalka Soomaaliyeed si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa sanadkan waxaa dooqiisa koobaad ololihiisa murashaxa ee Villa Soomaaliya u ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isagoo oo doonaya in uu markaasi ololihiisa dhammaan ku galo in uu wax badan ka bedeli doono istaraatiijiyada ciidamada inuu markaasi dalka guud ahaan ka sifayn doono al-shabaab balse markii hore oo uu ahaa murashaxa kursiga Villa Soomaaliya isla markaana 2017 uu tartamayay kursigan uu hadda ku fadhiyo waxa uu si la mid ah sheegay in al-shabaab uu 2 sano gudahood uga saarayo Soomaaliya balse taasi ma dhicin oo 5 sano oo uu hadda xukunka joogo madaxweyne Farmaajo wali al-shabaab kama adkaaneen dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya waxa ay ka soconayo kulamo goos ah kuwaas oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyii hore NISA haddana ah la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin iyo sidoo kale xubno la sheegay inay ka socdaan baarlamaanka Soomaaliya oo ugu weyn yahay
gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. ujeedada kulamadan ayaa waxaa la sheegay inay tahay sidii loo dadejin lahaa maxkamadda in ay markaasi dacwadda uu u gudbiyey Fahad Yaasiin ay bilowdo. maxkamadda ayaa dhowaan soo saartay amaba markaasi isla maanta soo saartay warqad ay ugu digayso gareeqaanka guud ee dowladda, isla markaana ay uga dalbanayso in uu ka soo jawaabo dacwaddii uu ka soo gudbiyey Fahad Yaasiin. sidoo kale warar kale oo aan la xaqiijin karin ayaa sheegaya in villa Soomaaliya ay doonayso in ay markaasi la wareegto xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Buux, kaasi oo isagu hadda la fahamsan yahay in uu taageersan yahay qorshaha ra'iisul wasaare Roble. waxa ay doonaysaa in ninkaas haddii ay gacanta ku dhigto in marka Fahad Yaasiin uu soo qaato amaba maxkamadda sare ay ku dhawaaqdo in kursigiisu uu sharci yahay, in kaarka aqoonsiga uu Fahad Yaasiin ka gudoomo ninka la yiraahdo Buux. arrintaas oo ah qorshe weyn oo ay markaasi dejinayso villa Soomaaliya, balse waxaa leeyahay arrintaasi ma ahan mid sahlan. waa xagaag qaybaha dhexe wararkan ayaad la socotaan. markaana aynu eegno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Gelle Yuusuf iyo wafdi horkacaya ayaa waxay maanta gaareen magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Muuse Gelle ayaa waxaa safarkan ku weelinayo xubno ka tirsan VID iyo wasiiro ka mid ah xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sida xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. ujeedka wafdigan ayaa ah sidii ay uga qayb noqon lahaayeen kulamada xal raadinta ah ee ka socda magaalada Baydhabo si looga gungaaro tabashada ay qabto koonfur galbeed Soomaaliya. gudoomiyaha VID ayaa ku biiraya dadaalada ka socda halkaas oo uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, inkastoo la sheegay in Qoorqoor uu isagu naftirkiisa fashiliyey howlihii halkaasi uu u tagay. koonfur galbeed ayaa qaadacday shahaadaysiinta xildhibaanada iyo ka qaybgalka xafladda dhaarinta ah ee xildhibaanada cusub oo beri ka socota ama beri ka dhacaysa teendhada Afisyooni. sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka carootay kadib markii 3 ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulkaas uu guddigu amray in doorashadooda lagu noqdo sababo la xiriira in ay markaasi khaladaad ku jiraan sida guddigu markaasi uu sheegay. si kastaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la tilmaamay in looga adkaaday dagaalkii uu markaasi u galay kuraastaas 3 ah oo xitaa lagu daray kan markaa Fahad Yaasiin. wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaruhu uu la kulmay cadaadis ba'an oo kaga yimid markaa beesha caalamka. villa Soomaaliya ayaana si lama filaana taageero kaga heshay beesha caalamka. maalmihii lasoo dhaafay waxaa jira kulamo u socday ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho, waxaana ra'iisul wasaaraha lagu cadaadinayay in uu xal u keeno arrintan weliba markaasi si degdeg ah. waxaana ra'iisul wasaaruhu markii dambe uu arrintan u xil saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee VID iyo weliba sidoo kale xubno wasiiro ah oo ka tirsan maamulkiisa, isagoo ka dalbaday in hawshan ay iyagu markaasi galaan isla markaana ay natiijo dhexdhexaad ah ka keenaan. hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay isagu in uu xayiraada mas'uul ka yahay, isagoo kursi u raadinayo qof kooxdiisa ka tirsan, qofkaas oo loo fahmay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo isagu raadinaya mid ka mid ah 3 kursi ee guddigu joojiyay. si kastaba beri oo ku beegan 14 Abriil ayaa qorshuhu yahay in la qabto munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada gole oo ay ku adkeysanayaan ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga VID, balse ma muuqato dadaallo arrintaasi ku saabsan, waxaana markaasi cabsi xoog leh laga qabaa in munaasabadaasi beri ay baaqato. balse ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga VID ayaa iyagu labaduba waxay ku adkeysanayaan in la qabanayo munaasabadaasi, inkasta oo hadda gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo, isla markaana aan la ogeyn in markaa uu dib uga soo laaban karo ilaa iyo beri magaaladaasi. balse xaaladdu waa ay cakiran tahay, waxaana suurtagal ah in dib u dhacyo oo xoog leh doorashada markaasi ay wajahdo. qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay. ugu dambeyntiina mucaaradka dalka ayaa waxa ay digniin dhinaca amniga ah u direen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. waxa ay markaasi ka digeen qorshihii Niza ay ku doonaysay in ay ku qaarijiso ra'iisul wasaaraha. waxa ayna mucaarad ku sheegeen in ra'iisul wasaaraha amnigiisa uusan ka warqabin. waxa ay aad uga caroodeen sawir ay soo wada galeen taliyaha kumeel gaarka ah ee Niza Yaasiin Fare iyo weliba sidoo kale ra'iisul wasaare Roble, kuwaas oo dhawaan booqday hotelka Jazeera oo ay markaasi dad shacab kula kulmeen. waxay sheegeen mucaaradka in loo baahan yahay in ra'iisul wasaaruhu uu digtoonaado isla markaana uu iska jiro in markaa hay'adda Niza ay u maleegayso qorshe markaa amnigiisa ka dhan ah.
dhowaan ayay ahayd markii nisa ay sheegtay in ay socdaan abaabulo ku saabsan al-shabaab oo doonaya in ay beegsadaan madaxda ugu sarreysa ee dalka sida farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare roble. guud ahaan warkii intaas ayuu inoogu dhan yahay. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.